qodobka inoo xiga haddaynu kafan ka dhammaanay warkiisa waxa weeye waa waajibka afraad oo ah waajib الصلاة salaada طبعا salaadu inay waajib tahay muran kaba taagno axkaamtan horaan u tilmaanay inay tahay fardu kifaaya haddii maalan ummadii ay qaybi u qumi kartana qaybtaa yani qof keli laga yaababa يعني أشخاص يجوا مارتي وقبل كراهو شاجرة تذكر يجا فرض عين بيجوني ويقول نقول لكن هذا يدد بضان وقبل كرا جيران فرض كفاية ويسكن نقونه مدي هدو قوم ويكوض الدعي هذا يكوض تجان كل جود ويود الدنبال صلاة مركب وحيكمتها وحيابها فرض كفاية ذا يكمتها هي صلاة مركب وحاسونا إن جماعة لقوتو كذو نبينا صلى الله عليه وسلم بحوت المام جري ننكي أي ميت كيسة إلهي وغا شفاعان دد قاري أفرتا إلهي شفاعة وكأقبري أيو النبي قوليه جري صلى الله عليه وسلم صادرت قفك حقال كاغي انت جماعة أبادين كرتو أبادي هكرا بخيلي وما ننكو كوبانا أديقو يسورة قل كوتاي ابن قيم oo salaad duhur jooga in meydka lagu tukada ay suuragal ku tahay yaan lagu tukanin masaajid buura ku yaalo oo laga yaabo laba saf inay ku tukadaan ama hal laana ibn qayyim oo kala duhurkii waxa ku tukan karta 2,000 3,000 qof marka 2,000 adoo u heli kara inay 20 qof ku tukato waa hakrasho marka waa maalinkaana isagu xil ma saarno laana waxa weeye tiradu markastay u badato oo dadkani ilaahay u baryaan ducada in loo aqbalaa badan wana xuquuq u leeyahay marka in jamaacada lagu tukado oo meydka loo badiyo jamaacada way fiican tahay salaada marka tukashadeeda yaa ugu haboon in imaam ka noqdo qofka ugu haboon waxa weeye inuu ku tukada laga rabo waa qaraabada dumarka mooyee oo dumarku iyagu inay tukiyaan oo yidhahdaan janaasada anaa hormuud ka noqon maya looma ogolo laakiin ogow jamaacadii way ku soo xidhan karaan meydkana way ku tukan karaan yani innaga dumarkeena imtixaanada ayna haysta meyd dumara laga yaabaa iyagu inay diyaariyaan salaada na ayna ka qaybgelin oo ajirka halkaa ku dhaafo waxaa suuragala duruuftu inay ku adag tahay inay u raacaan masaajidada oo intaad meydkii horey u dhaqdaan intaan la qaadinba hadduu yahay maxaarimtaada iyo hadduu yahay yacni dumarba waxaa fiican meydkii horey u qabanqaabi intaan la qaadinba dumarku haddayna raaci karin meeshaa uu yaalla meydku inay ku tukadaan baa u fiican naftooda lan ajir weyn bay ku helayaan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam ninkii janaasada ku tukada qiraad ajira buu leeyahay qiraad nabigow muxuu yahay baa la yidhi waa ajir marka haddii muuqaal loo yeeli lahaa buurta uxud la eg ilaahay agtiisa halka waran qofaad ku tukata ajir intaa la eg haddaad ka heli lahayd ood bilaash iskaga tagsiiso so adigu ismada khasaarin marka inaad ku tukato haddaadan raaci karin baa habboon haddaad raaci kartana ka qaybgal tan kale in la baadhbaadho lama rabo muslimiinta oo la yidhahdo war kan see ahaan jiray muxuu aaminsanaan jiray see buu ahaan jiray kan muxuu ahaa ha baadhbaadhin qofkani soo muslimiinta kuma dhex dhiman soo xugun ahaan muslimiinta lagulama dhaqmayo ha baadhbaadhin adig caqiidada u aaminsanaa iyo keebuu ahaa iyo gruubkeebuu ahaa iyo hawshaa kuuma taallo muslim ahlu tawxiida soo ma ahayn hadduu raba ahlu macaasi ha ahaado ku tuka adig ha baadhbaadhin adig ha marka dhaqitaankii sidii loogu kala owleysnaa yaa hadday suuragal tahay ku habboon macnaa maalan aabihii meydkan aabihii hadduu dadka tukin karay isagaa ku habboon baa la yidhaha awowgii wiilkiisa haddayna markaa suuragal ahaynna oo dadkii waxaa laga yaabaa ama caamaynima inay jirto ama mararka qaarkood fiqigiiba inuu maqan yahay imaamka markaa masaajidka tukin baa iska tukin dhib male see loo istaagi marka meydkii waa lagu tukanayaa hadduu nin yahay waxay leeyihiin culimmadu dhinaca madaxa lagaga aadi meydka hadduu nin yahay madaxa lagaga aadi saa darteed waad aragteenoo aimada masaajidada markay meyd la keeno war meydku muxuu ah ma nin baa mise waa rag baa lagu dhihi soo maydana marka rag hadduu yahay nabigu wuxuu amray in madaxa lagaga aado
يعني هل كان مدحه أيو كجادي إمام طبعا أنت كله وصف ديرو نبى ملبو كجاد هذه الدمرية هي هل كا أرحضا أما مارتي برتمها جدك أيها لجاد إيش أنا عندهنو كنت قال لك حدا ما جوجرده هل كا ساتمر كلجاد يعني حررك نبي عليه الصلاة والسلام بس سدا وما توبر قضية محاسدة لو يريئيو كان يا هيدي صومالي ذو موقتها وحفظوا البضن بارناهي على إذا ذا كواسي ماشى سيكدم بابا حوش عادكم مطار إلهي شرعي جيس اللي لم يفرق جريو إلهي نرجع الدمر مكر حجان لبضوا وعطومه ويسوي أبورتي مركز الشرعي قاصدا ورتبي صلاتي مركا هذا وقوم ديرانا إنه هذه صفقة إلا السماء الله ربا صفقة هذه إلا السماء الله أكبر بسلادي اللي جوجل الله أكبر تا أوه الرئيسة مركي إلا حدنا يعني حوية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد كب الله بي لماذا بركة حيلين ما بسم الله وكب الله دعاء الاستفتاح هي ماله دعاء الاستفتاح هي دعوين كي الله أكبر تي يقول حين جري قرآن آخرسك حيلين ما شاء الله ما باهرو كذب فاتحة دي بو آخرية قف فاتحة هذا مركو آخرية أو دميو آمين بو يسده سورة لما آخرين هي فاتحة هذا كذب أكون مشغول فاتحة هذا بس هذا آخرين كذبنا وحالدي الله أكبر لبعض بالله توري أو فاتحة هذا كذب بيسا الله أكبر تعالى بعض مركا تراهدي النبي قد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد النبي قد صلى إلا صيغة الصلاة النبي يقول إن لو صليوا استجا صحابة براي على جاب الصلاة مركز كجر إن النبي سكلا أقول صليوا وصلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام سيما كان إن تقول صلاة صلي ذا سورة قلا لكن صلاة مركز كجرته صحابة وحيدة النبي الله سانكو أقول صلينا بينا صلاة النبي قال سيدنا براي مركز هذه الله ينكرها جرينه تنو النبي براي ونفع النبي مركز كسل لذيذ إلا أن الله أكبر وأنكو قلنا صلاة فاتحة أنا آخرين الله أكبر لبعض بان كله فني النبي كان كصلينا الله أكبر صدحات بان كله فني مركا النبي كان كصلينا الله أكبر عنيري ميت كين لو دعية وقت يدي بالله هذا إلهي أفعل بكو سهلي وحل الله وحي كلتا يكون دعاء هذه كلام حقي عربي وكوجو هذا جاي إنك صاير فضل بدن تاي دعوين كما ثور كآية النبي صلى الله عليه وسلم كساروري إنك صاير فضل بدن تاي مركز دعوين فرب بدن باجرو كتاب كان حسن المسلم كقاده يعني جنازة يدعوين كوذا فيري على الأقل هل دعاء اللي بدعو سدح دعو كحفظي لأن ما نبيكو قبصا رجعنا ما نكسوي بقبصا ضاو لأن مساجد دي بالكين مركز المسلمين ثم يتكودوا عين إلا وحكر الله آخريهم إمام كامين لورد هي مجري أظن ماذا مصنع الصومالي نينا طلطل لقامه وقرأ مركز دعوين كابر دعوين مركز ويترب بدن يهين وحيابا وقمهم سن وحوية إن ما يتكن لوجو دعيين وإلهي دنبقي صدافة حيابيه اللي سوق ورنجري وحاكم ذا اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما فيه لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم نزل به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ودعوين فرابضا ونحر كودو يهي إلهي وأضون كريم ما أنت وحو هيسن جريبه كفر مدوية إلهي ونحرسون وي إلهي ودو وناك سمايي أها خيري وناك شقين جري خير كيسا أولا بالزيادة والله بلا هدي حماني يدن بلهانا الله إلهي ونحرس هذا أقول له نحركو حوي ميت كين لو دعيو
sababta saacadu aad u baahan yahay duruuftuna ku adag tahay yacni wixii uu kasbaday iyo muslimiintan sadaqada ay u bixiyaan oo ku manaafacaadina uu taagan yahay marka ducooyin fara badan baa jira hadda waxa lagu tukan ilmo yar yahay ducooyinka waxaa loo sii raacin in la yidhaahdo اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما المير هدوياي هذا وجود عين ألا إله يو إلمان عيل اللي خير قبته وقد قلبات النش أو كهر مرتو كيدوا يجونا يكون أنا قاتان ويكون عبرة قاتان أو الشفاعة إله ميزان كان لبدي سوارد كل عسلة سمرنا إله وكشف قلبي قاض دعاء الله قدر المير هدوياي دعاء الله راعين إنك لكن سومالد محيد هذا والمير بوها هاي دبقي سيله ودافي إله ونحرس وحبده مين لكن شريعة أنه مين الدين وقوي إنك جاب كان أنت كلا صباحنا دتك واوي وحل لو قد عين الماء يري ميت كان ولا لو قد عين لكن وحول داري هاي الله بدي الشيء أنتو عجار لو تعين لأنه واد قرن كرتا هو يسقال بلود الماء سوودي وأنت إنه جس سقال بلود وكجد أنتي حنون كي يلا حبوا يدري واد قرن كرتا صام مكين لو تعين يلا بده وارد يعني ماشي هو يكون جرتا على كل حال دعاء هذان لما إنه وسلام النقص مركب حيدا العلماء الشافعية وحافي عن أدينا إن هذا السلمامين إلا ندينا نفترض هؤلاء القبطي صوما حيلي المركب علماء الشافعية إننا ندعي سنة ويون دهنو اللهم لا تحرمنا أجره إله أبال كيسا هنجه جن ما كان حبالنا ويستغنى أو شيسا إله أجر كيسا هنجه جن عمل كان أقبل ولا تفتنا بعده إله قداشي هن فتنين واغفر لنا وله إله أن نجي يسقب النود بالله انت تلاقي انت هذا السلام عليكم به اياد مركا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله باطي شافعيد وحي قبان ان لبدا دينع السلام عليكم لو يداه لكن قولوا المحدثين تا وحنبليده انت بدن اي كسعوتو السلام عليكم طهرون وي ومتى كلا وين دوغاتا شافعيد حتى سالادان قول وحن ركني السلام عليكم طهرون وي تنضم واسك سنه لذلك مركز السنة ذا صار يسكوا يستاو شافعية ويو وحي قبان لبضا دينا بين السلام عليكم لو يجده هذا صلاة تدبا واجب بيلاده كو صلاة وين النيوتين أدميت كتوكا وين تاجنتهي وين أفر الله أكبر كتورته فاتح هذا وين أخرده نبي وين تكسل لذا دعين تواجو قابن نميت كادو قد عيسو أنت أقول قابن وين أتراد اللهم اغفر لهذا الميت تنتظر وحوية السلام عليكم طهارة تنتظرها الرباط مع مركب واجبة مركب وحيابها واجبات كحوك صار سي صرادي ميت كعد كنت كتي أجر كذا هناك أقرب وتنتظرها الرباط مان كعجها كجرته كو وين أثرت النية صلاة الجنازة وين الديوتو وين تاجنتهي وين الله أكبر أفر جيرتي هذه ومد والبا تكبير كستا وحكذا بيا ورد معين يذكر معين وين فاتح هذا آخره وين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كسل له وإن ميت كود عيسو إيوه إن مارتا السلام عليكم طهارة تضبطها الريموت بواجبة مركا إنا هنا وكلا وحل دوني انتي لا برطو ميت كينات كتو كتو تكشدانا رقية بالعان لمكلا حيقو وأرن نكي سمايانا وأجر كيسا كويلي كيسا مين ويانا أجر كيدو كتجيون حديبا يقهر مرتا صلاة كور وهكذا حق صلاة الجنازة عفوا حق صلاة الجنازة شروطها يدو محيي شروطه صلاة اللوح رجلين وين ظاهر وقفك جركيسو يهي ويسقبو ماشي وكنتو كان طاهر تهي يعني وحوي ميدكي لكانو وحيامها نردن شروطها يا هاي صلاة اللوح رجلي سوما طهارتي ويسدي هولها هذا بصوما هين هولها ويلقبتها waxay la dheertay in meed baa la dul taagan yahay ilaa waqti salaadaha kala waqti baa loo xidhi jiray in salaadii duur waqtigeedii la gaaro salaadan waqtigeedu marka meed in la soo dhigay weeye sooma shuruudahaas ayada loo xidhaa waxaana ka hormaraya
إلا ديرتاي شروطها أنت سلاد اللي تكذنين وينو كهر مرة بيتكي والله دقي وينو الجنازة حق قبلة كم قبلة جنازة وين الدين على قبلة بيتكو كاجي هذه وين أتكلم بيسو هذا حقه ورميتكي وأنت يلا أنا حقه وسيجت الجنازة ذي واكاكا هل بعد لو اللي سوي وحاك له كفنك أنت اللي قلنين إلا قلت كذا وكراهة هذا وين كفنك اللي قلي يلا هذه وقفكوا عال وكل انتي أما مثلا جبي وحياب الله مذا يكدوا مين جوارد هذا إن لقى دوبي باكم إذا ما إن ماريه أو أي سورة قالي وإذا إن لقى صباحية ماشي وحي كدوا مي إيه الدقيديسو لقمته كان يجي العلماء جبي باكدوا مي قفكي أما عيل بوبا كل انتي إن لقى صباحية وي سورة قالي وإذا حيلايهن مربع هذي كسبحنتي سيد دقيديسو سورة قالي وإذا إن لقيتو كذا أنا واجب نقوم ما داعي وشهيد ها marka mar hadayna inagu intaan soo bixinay inagu xabaalayni kod laqodayo dheer bu ku dhintay isaga qabri u noqday Sooma wayna suura gali weeyday in laga soo bixiyo hada waxaan maran reer magaalku waxay soo bixin waayaba ma jireen taraktooyin iyo waxba loo yeeran qarash ma ku bixiso laakiin way qabsan jirtay dadkii hore buura waaweyn baa ku dumi jiray oo qofka maartay suura gali waayay jirtay in la soo bixiyo كورنادو إمامك يقاله هرمرة صلاة إمامك بابا يقاله هرمرة صلاة الله أكبر حلي هري يسوي يمد بان يسوي يدي بان يمد وقراءتي بيقاله هرمرة ذكرك يترتيب كيسي يوحي بالله يقاله هرمرة واحد كسو قاعدهم بعد كلا قبسة مثلا يسوى لحظة ولا هذا تسوى قاعد الله أكبر انتهت هذه يا هذا فتحة كجاد قوات كجاد ويديبه الله أكبر تعترف وإمامك الله أكبر يدي فتحة يسوع كاحن باري بالقولي الله أكبر تن لبعض مطلق أبصر ما يسوي دور تكبيرات تكتيبات كوسا حدتين ما شيء يكون مرة يسوون بعد كلا قبسن إمامكم مركو السلام عليكم يدادو وما تمشيرنا هذه أنت كله لما نقاد يميتك وين لو سوقو إلى مرتي ضدك لقى هرمري أي هاوش هذا كذا ميستان حياما مركل لو بهي وحاكم إذا إن للدك دقو ميت أو هري الله حباله لكن إن معناها حوية دق قاسي والنقطة دق فوق العادة ما فيه صدرت إنك مجتمعين صومالي ده كاريجي عاير صعد بحان دهرة والميت بوضع صو تانا صحما على الرباطان ميت كان يبسو قارين قاري يقولوا سفي عن الصعدالة سيدا بني آدمي النور عادي قاعد اللو ودي جري وقاري يقولوا سعون جري سيدا عن دبكة كلها يعني نجا بوادر كي مركا إنه عادي ناي ميل كذا إذا مركا مرة إنه وقاري عاير وضع بندها إنه دول السيمان مركا إلا السعودان قاري قمات على الله قاعد جاسوما مركا ميت كمركا الله وضع حل ربا قاري سيدي عادي قاعد هو صعد إن عاير لله ذيه ومخالفة للسنة بل النبي وحدي يجري هاي وحبالة ميت لكن وحمار تدب كوا مايا مركا أرين كاس وأرين لدوني لغو براروغو هذه لغا بقايو ميتكي مثلا إنو با داهداهن لداهداهيو ومعناها دلدلاعو حللية ولا ددجين هرا لولو أرديا يعني سي لوغا قارسية انتونا قرمين او معناها حوية اونان حالة وعينا مارتي فراها كبحين وحاكا لو سنة ميتك إن لا راعو أي رقو راعان دمر كمايا وأيان دمر ريرغارزا وحابي لابطي إنه دمر كو إياغونا ميتك مركي لدقاجيو قيادي يسكو قران أرنكا ومخالفة للسنة دم ببانا كاسو راعي ما في عنينة راعي سببتها رقن وحا راعا لوليهي قيبي كقاطان عرق ساعة يعني حوية كذا جوجويا وحدي ديبا وحبي قبنا أيان لكن بالعنتو وحنا كما قيب قران انت قبريادي تقان يمشى يستوري مركز سوا حلقة يبين ملها أويان سببتها قفكي حقال كاجا والله حوالي مركز هلكا تكتين حتى جيريدا وحا حسوسية ضدك فراها بدن أرى قوضة قفكي أتكن حيسي مركز ركتين وتيق البركن مركز وحيابها
samir kiisi qofka kala dhantaali oo sabab hadhow inuu ooyo ama si qalbi xumaado lama ogolo dumarkuna sideedaba qaybta naxariista xoog badan qaybta naxariista ayaa xoog badan marka meelayna hadhow sananayni inay tagto xaraan weey sadarteed janaasada inay gabadhii raacdo xaraan weey sharcan ولذلك arrinka la iska jiro hana la isaga digo hana laga fogaado laakiin ragga waa sunna inay raacaan sababta waxa weeye tacliintii nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadii uu ku maamulayay sidaa ahay gabdhaha iyo ragguba hawsha way ka wada qayb gali jireen wixii guri laga qaban bay ka qayb gali jireen kaalinta kaga aadan gabdhuhu gurigay ku hari jireen ragguna meydkay raaci jireen marka sideedaba dhaqankii nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa arrinta laga soo min guurinaya waxaa kaloo karaaha haddaan loo baahnayn dab iyo wax iftiimi in la raaciyo meydka dab iyo wax iftiimi in la raaciyo oon loo baahnayn looma waa karaaho ma aqaana dee dabka moogtahay qolyaaba caabudi jire oo maaragtay sanam u ahaan jiray marka shareecada waa laga digay baa la yidhi in dab la raaciyo marka dabkii hadda waxaa looga qiyaasan meelaan loo baahnayn toosh iyo waxyaaba iftiimi iyo looma baahna laakiin innaga hadde xilliyada habeenkii oo kale iyo haddii la xabaalayo waa lagama maarmaan haddii loo baahan yahay marka dhib male un caadooyin jaahiliyadii hore ay lahayd baa ka mid ahay qodobka intaa marka waxaan kaga baxaynaa salaadii meydkii xabaalkiisii iyo buddhigidiisii baa markay noo timid haddii meydkii sakaraadkiisii aan goobjoog ahay indhaha loo laabay afka la isugu qabtay xubnaha la jiljilciyey la isku duway maryihii hore laga bixiyey kuwa cusub lagu daday dhinaca midig loo seexiyey hadday suuro gashay haddii kalena dhinaca qadaadka la isaga seexiyey oo dhinaca midig haddii loo seexiyo dhinaca qiblada loo jahin wejigiisa haddii laakiin ay suuro geli weyda gaaliban anigu hadda intaan ogahay ciroolaan ahaye gaaliban soomaalidu qadaadka unbaa loo seexiyaa meydadka leanna waxa weeye dhinacu seexadku ma aqaan naftii iyo waxay nagu xajiye markuu qofku naf bax la kariba maayo marka qadaadkaa la isaga seexin jihada qibladaana loo jahayn kadibna loo dhaqaaqay hawshii dhaqitaankiisa kafankiisii lagu xijisiiyey salaaddii lagu soo tukaday la soo qaaday oo gaadhigii intii raggii ay dhinacyada qabteen gaadhigii la saaray meeshii qabriga la geeyey la dhigay waxaa la sugayaa soo maaha in iilkii la geliyo sooma qadiyaddaa iyo axkaamtii ku tacalluqday baan markaa u guda gelaynaa kadib meydkii waa la xabaalayaa waxaana fiican meel qabuuro ay ku yaallaan in lagu xabaalo laba meydna meyd meeluu ku xabaalnaana meyd kale lagagama dul xabaali karo inuu kii hore dhammaado mooye meyd hore meeluu ku xabaalnaa in mid kale loo qodo lama ogolo allaahumma inuu kii hore dhammaado mooye oo hadda cilmi baadhista waxyaabo badan baa lagu ogaano yacni meydku muddo mucayana markuu yimaado yaallo carraduu kala raacaa lafihiisuna way iska baaba'aa marka haddii meydkii uu baaba'ayo dhulkii waa looga faa'iidaysan karaa meyd kale in lagu xabaalo ilaa yowmina haada xabaalihii baqiic ee nebi moxamed sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa ku xabaalay ilaa yowmina haada waa lagu xabaalaa laakiin hadde waa la tandiimiyaao qabuurihii hore muddo mucayana oo qofkii uu baaba'ay ayaa maaragtay la sugayaa muddadaa markay dhammaatana kuwo kalaa loo qodaa sidoo kale waxaan la ogolayn laba meyd hal qabriga in la geliyana lama ogolo haddayna baahi jirin oo baahidu maxay noqon kartaa yacni maalan dagaalla meel ay ka dhaceen oo dad badan ku dhinteen ama cudurro iyo daacuun iyo aafo dad badan ku dhinteen yaa loo maaro waayo mid walba qabri gooniha in loo qodo markaa ayadaa yacni hal qabrigaa loo wada qodi laakiin iilka intii xabiil bilaashta la yaro weyneeyo yaa iilka midna dhinacan loo qodi midna dhinaca marka waxaa loo dhaxaysiinayaa qayb carraa loo dhaxaysiin laysma garab dhigayo haddii la rabo iilkaa la weyneyn laakiin waxaa la kala dhex dhigi dhoobo intii la qaso yaa dhoobadan maaragtay sabatida ayaa maaragtay loo dhigi
حوجا يرمارتي وحبا لود حيسين وحبا لود حيسين إلكي بالوينين مركب حالة سمين نوبضي لقصي أيها دحضوضة وحالة قدقي سيدي عمل حجاب يرود حي كنا دين عنا لدي كنا دين عن هديبا أيهين رقي الدمر أي كليهين يدوا أرنتا آد بي علماء دوات كيانو وين حجاب وين ورد حي وقماتي الرحوق للود حيسية بيد هذا قارهان لبدا أجنبي قيسوا هدي وقفك دوني كردنتو وأين سورة قالين إن لا حبالو محل سمين بين هذا العلماء حي هذان يعني حوي بويا عاير لدح قلين ما كان بطل لقو طوري إلا المويا ده ضد كان ماشى فردي بركة مدينة بقبسان طونتو يجو دون مارتي لما حيا فضح إنهم إذا كان توا صورة قال صوبا من يوم يحول بو قبسان كان يسمو هذول أعضاء بدوين إنه قف كهذا ما لا تكون حدا شاهدا هاي سوى ذا شذنا يكوكو هذاك تاي محل صوبين قوية أنت تسقي يرد بردو مراكبته أنت بدن وحول بوسارين هاي وباو قاسفي عن لوجو كلا ليسقونا كبيو هيا بطل لقطه تاسع قبري وابيليه العلماء قبري أنت وغير مركب حويه وأنت ميت كان أركي سقارين ومركو قرمو وسنوسو نيفين ندك بناك سيدو كلنا كعلين إيسا دقاقتا يوحيامان عدودك عنا هيربك لكن وحاسونا إن لا واسعيو ولما هوس لو ديريو استاق قف iyo waliba gacan fidin waxaana fiican midka eelka dhinacan qiblada yaani waxa weeye laga qodo oo eelkaas haduu dhulku dhul adag yahay in xagga eelka loo qodaa fiican in dhaxdan laga jeexo ka eelka fiican oo gabiga dhinaca qiblada jira laga jeexayo inuu ba dhulku yahay dhul jilicsan mooyee oo marka waxa sunnah in dhaxdan laga jeexaa fiican sababta dhulka jilicsan gabigan hoosta laga qoday inuu hadhow ku duma laga cararaya waxa karaaha in sanduuq la geliya karaaha meydka inuu dhulku dhul jilicsan yahay mooyee wadariga hada reegal ba dunida hogaamiya dunida hada dadka dhintay oo ugu badan hada sanduuqyo baa la geliyaa isoomo waxa ugu badan hada dunida la qaataa waxa weeye taabuutka ama sanaadiiqdan baawga ee meydadka lagu xabaalaa ugu badan dunida hadda xoolalka caruurta loo gado taabuutka dadka lagu xabaalaa ka badan bay yidhaahdaan marka gaaladu inta badan qofka ka dhintay way ku cadaabmaan waxaan arki jiray kuwa gaalo oo qof aan naga dhintay oo walbahaarsano ugu yaraan bilaa la haysan meydka bas waxa lagu leeyahay wax lagu xabaalaa bal la yahay way ku dawarsadaan oo ku rafaadaan oo ayar intaad god u qotaan ma ayr iskaga tuurtaan ويدين كوي بيدين دبير تعال قولي حضارته أما ميت كقبر جرين تيسا رجع بقى عنتا كردي أو هوش عقبنا يا هدور ربع قف كردين تي هالنقطة قف دمرة كأوجوها بونينو إيل كرديجو قف كدمر كا وحويه ننكر زوج كذوينو إيل كرديجا فيه عن sababta waxa laga yaabaa wixii waa la qaadaya qofkii markay wada noolaayeen ay xalaal isu ahaayeen baa ku haboon inuu qabto oo jidhkeeda iyo la baashiro marka ninkeeda ugu haboon iyo cidii kale ee maartay ugu habooneed xagga tukashada marka ilgelinta qofka dumarka xataa aabaheed ninkeedu inuu ya ka mudan طبعا de hal qof ma ba xabaari karo marka dadka xigaalka in lagu aadiyo ninkeediyo aabaheediyo wiilka ay dhashayiyo walaalkeediyo dadka xigaalka inay ilka dhigaan baa ku haboon waxaana ku haboon bay yiraahdaan qofka aqoonta diineed leh ee systemka wax loo xabaalo ilaa moogta aqoontan maanta loo baahan yahay waa aqoon qabriga iyo maamulkiisa iyo maslaxadiisa qofka aqoonta u leh ee dabari kara ee sida meydka ilka loo dhigo ee dhoobada iyo la isugu hagaajin ee wajiga dhulka loogu dhigi ee macnaha carrada loogu barkin ee dhinacyada looga tiirin qofka aqoonta u leh baa ku haboon waliba qofku ka weyn yahay baa ku haboon qof dhalinyaro oo dulduula kuma haboono ala cagsi salaada waxa weeye xigaalka iyo xaggaas la eegay
وحكى السنة dadka iilka gelinaya inay tira isdheer noqdaan waxa kale oo sunnah dadka iilka gelinaya saddex haday ku filan tahay saddex ha noqoto ka yar ma suuragal ba ma aha hadayna saddex ku filayn oo afar loo baado waxa sunnah in ku shanaad lagu daro marka inay tira isdheer noqdaan baa suuragal yaa fiican oo sunnah waxa kale oo lagu daboolaya marka la xabaalayo ama lagu qarinaya maro waad aragteen bulshadeena marka meydka qabriga la gelinayo gooweyn baa inta badan lagu dadaa gooweyn baa lagu dadaa yani waxa weeye inta meydka ilka la dhigayo xaaladda lala tacaalayo go'aamiga fiidaha asa la qabtaa soo marka insaan loo dado oo auna banaanaanin baa haboon sidoo kale madaxiisa marka sida looga soo dajiyo gaarigi lugaha meesha ku aadan ba madaxiisa la soo dhigay waad aragteen dhinaca lugaha laga soo wareejiyaa meydka Soomaa qabriga markuu saa u qodan yahay sidan oo kale dhinaca laga soo gelin maayo meydka waxa laga soo gelin dhinaca sababtoo hadhow waxa la rabaa intii saa loo seexiyo qiblada in wajigiisa loo jeeyo marka madaxu xaggaas u mari doonaa saa darteed meydka dhinaca laga keenayo waa dhinacii lugu ay xigi lahaayeen ayaa madaxiisa laga keenaya halkaas laga keenaya meydkii markaasaa si tartiiba madaxa suruq horay loo soo si tii la isla qabto oo meydkii kor loo qaado yaa madaxa laga soo galin dhinaca qabriga xaqii lagu hay jireen baa madaxii laga soo dhiib yaa loo dhiibaya dadkii meyd qabriga ku jiray baa loo dhiibaya qabrigii marka qoladii gudaha ku jirtay baa yaa gudoontay oo la wareegtay Soomaa meel waliba waxay leedahay wardi iyo xirsi xidhiya aadaab bay leedahay inta aan meydka wadno waxa la dooni meydkan in loo duceeyo waxyaabaha xun aan lagu hadlin sheekada iyo asaawa iyo qosolka la yareeyo meydka in maartay yani waxa weeye loo duceeyo dhikri carabka lagu hayaa la rabaa waa la dhiibay ninkii loo dhiibay ee budda dhigayay muxuu dhihi wuxuu ku bilaabi bismillaah wa ala millati rasuulillaahi sallallahu alayhi wasallam ilaahay magaciisa ayaan kugu baddigaya iyo diintii nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaan qabriga kugu seexinayaa buu dhihi u fiirso maalinkaan dhalanay saa markaan u soo baxnay waxa la yidhi ha lagu adimo tanna ha lagu aqimo sooma laana ibliis xilligaas uu shaqaysanayaa uu dhibaya xayaatada intaan xukunayna waxa la yidhi qalbigaaga iyo carabkaaga dhikrigaaga ka qoyanaada soo markay naftu naga baxaysay maxaa lagu khatibay tawxiidkii oo ha loo qabto la yidhi qofkii soom iyo khayr ha la xasuusiyo hadda aan budda dhigayno iftiin markii ugu dambaysayna yani waxa weeye bisinkii iyo diintii nabi maxamed baa marka budda lagu dhigaya taasa marka carabka aan ku qabanayna waxa la diidayaa yani waxa weeye deelqaaf kale iyo yooyoon kale oo loo baahnayn baa la diidayaa haddaba muxuu samayn marka intaa hadduu yidhi wuu u ducaynayaa meydka qofkii budda dhigayay wuxuuna u barkin uu dhabanka u dhigi dhoobo qoyan yaa barkin looga dhigay laanna garabka marka dhulka loo dhigo madaxu hoos buu u dhici soo moog waxaa la rabaa qofkani inuu saa u jeefaa la rabaa saa darteed dhoobo qoyan sabatida waa la sii qasaa ama dhoobadii qoyanayd baa in barkin noqoto iyuu qaadan madaxuu u dhigayaa si fiican sidii isagii oo barkin caadiya ku hurda ayuu u dhigayaa madaxa wuxuu samaynayaa marka dhabankiisan marada uu ka hoos bixin maradii kafanka ahayd ee saddexda lakab ahayd ama labada lakab ahayd wayn wuu u banayn dhabanka markaasuu caradan uu barkinta ooga dhigay buu toos dhabanka oogu dhigay waxaan u malay warku waa cad yahay kadibna dhinaciisa midig buu u seexin isagoo weliba xagga qiblada u jeedinaya arrinkaasina waa waajib wuxuuna ku dhisayaa oo ku taagayaa dhoobo ayuu ku taagayaa oo see ugu taagi dhinacan midig dhoobaa laga dhigay
حق قبلة يعني دينا عن مارك حق اللابطة دوبوين بو كاغا صوتيري انت كاغا تيري انت كاغا تيري سنت كاغا تيري لغها كاغا تيري دينا عن دبر كان وو كاغا تيرين دوبدي بو كاغا تيرين انتو كاغا تيرين halkan qadaadku kaga tiirin waxa la diidayaa meydkii inuu baraq xagga u soo kala yiraahdaan la diid ama xagga maartay bogbog inuu u seexdaan la diidayaa waxa la rabaa meydkii dhinaca midig inuu u jeefo qibladana wajigiisii u jeedo habeenkii markaan seexanaynana sidaa loo seexdaaba la yiri soo qaabka marka inuu u dhigo meydkii ayaa laga rabaa hadii qaabka loo dhigay si markaan nidaamsan ayaa marka eelkii geedihii iyo maadooyinkii loogu talagalay baa lagu xidhaya geedi iyo dadka barkoodna waxay isticmaalaan biraaba lagu xidhaa baatibaaba lagu xidhaa digeedi iyo wax loo dhigo ayaa lagu waxeeyaa dhoobadii marka lagu adkay oo kor iyo hoos ba lagaga saynsaali meydkii marka sida loo qariyo sunnadu waxa weeye inaan hal mar lagu boobin